بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa salaamaya waxaan maanta halkan u soo istaagay inaan fariin muhiim ah inaan uga gudbiyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka qalabka sida iyo ciidanka difaaca jiida hore ku jira ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dhamaan qaybaha ciidamadoo dhan iyo ciidamada difaaca shacabka intaba fariintayda ugu horeysa waxay ku wajahan tahay ciidamada geesiyaasha ah difaaca ugu jira dalkan inay ka xoreeyaan khawaarijta ciidankaasi ama ciidanka dawladda ciidanka qaranka ha ahaadeen ama ciidanka bulshada ee mujtamaca ee ayaguna ciidan qaran ah laakiin ciidanka difaaca shacabka la yiraahdo oo ka tirsan deegaanada ay shabaabku haystaan haatana dagaalka uu ka socdo ciidanka waxaan leeyahay geesiyaalaatihiin dalkan shabaab maalintii dagaalkiisa u bilaabanayay meeshii uu shabaab joogay dhulkaasoo ugu baahsanaa meesha laga soo bilaabay dagaalka waa ogtihiin meesha waxaan rabaa cabirka dhalinyarada ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah iyo dhalinyarada shacabka ah difaaca shacabka ah ee u istaagay karaamadooda iyo ciziga dalkooda iyo dadkooda iyo dowladooda iyo diintoodaba inay soo celiyaan ay xoojiyaan oo ay taajiyaan u istaagay waxaan leeyahay walaalayaal wiilashaydii gabdhahaygii bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada bacda xaashiley ee gobolka hiiraan iyo gaduud meelaha iska galaan ka mid ah isaga dhow yihiin ilaa maanta meesha ilaa muxuu coos weyne iyo ceel buur iyo maxaanku irahdaa wabxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan bal qiyaasa webiga shabeelle ka bilaaw ilaa badda Indian Ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug xeebaha dhaadheer ay leeyihiin oo dhan ku gee dhulka baaxadda la eeg aad xoreyseen dhulka baaxadda la eeg ayaad cadow ka qabateen dhulka baaxadda la eeg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay nafta u hureen sidoo kale geesiyaashaas waxaa ka mid ahay ciidanka difaaca shacabka ee deegaanada wiilal geesiyaal ah oo la garanayo la yaqaano ayaa naftoodii u huray oo ka tirsan deegaanada deegaan kasta oo shabaab joogana kula diriray waxaa naftoodii ku waayay geesiyaal odayaasheenni ah akhyaarteenni ah dhaqankeenni ah oo ay ahayd guryaha inay noo joogaan annagoo aan dagaalka aadno dhalinyarada haddaan nahay ay ahayd ayagaa inta soo baxay qoryahooda soo qaatay dhalinyarada la soo galay safka hore qaarkood ku dhinteen ay ku shahiideen oo la wada garanayo oo uu ka mid yahay cilmi hagar oo mar walba la sheego qiimaha intaas la egaan soo bixinay meeshaasaan ka soo bilownay maanta meeshaasaan joognaa labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yiraahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yiraahdeen tiro ka badan 190 xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen isbitaal uma hayaan daawo uma hayaan meel ay geeyaan ma hayaan inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawac ahaa xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waa gaarayaa waana la baari doonaa waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii sawirro isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka Amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xirxiraan inay maxaanku irahdaa ay been ka sheegaan waayo waxa muxuu ahaay baraha saxaafadda iyo media wareegayo in badan oo kamid ah waa run wiilaa naga dhintay dagaalan aadna dagaal waa lagu soo dhintaa waa lagu soo dhaawacmaa guul iyo sharaf iyo heybada lagala soo noqdaa hooyada wiilkeeda dalka xoreynayo sharaf ay dheer tahay hooyada wiilkeeda muxuu ahaay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqeynin u dirsatay waxbay dheer tahay
waxaa la joogaa waqtigii geesiyaasha mudan in la abaal mariyana la abaal mari lahaa. waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidankii la siiyey ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa, waana la isla xisaabtamayaa. dowladnimo waa isla xisaabtan. kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada, waa shabaab. noogama sokeeyaan kan shabaabka ay qoraqa iyo qaraxa wato, noogama sokeeyaan. marka taas maalinteeda iyo waayaheeda aan u tegayna, laakiin waxaan rabaa geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ceebna ma lihidiin, canaanna ma lihidiin, waa dadaasheen, waa qabateen doorka idinku filnay. dad idinku dhex jiro, ama sarkaal ha ahaado, ama askari ha ahaado, ama qof kale ha ahaade oo khalad sameeya hadduu jiro, waa lala xisaabtamayaa. laakiin qaladkiisa yaa qofna iyoonu ta'hiirin. waxaan leeyahay haybad iyo sharafaad leedihiin. xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa. wixii dhammanna waa la idiin soo dhammaystiraa. meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. khalad la-aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay. meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa, iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen, ee aad maxaanku irahdaa u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka, inaad ku nagaataan, ayadii aad shaqadiinna in halka wadaan. waxaa kaloo rabaa, ama hal goob dagaal ha lagu guul daraysto, ama mid xumoo tashwiishda xagga wax ka sheego, dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horeyaan u soconaynaa. guusha kama dambaysta oon raadinaynaan gaaraynaa. waxa muhiimadda inoo tahayna waa guusha kama dambaysta ah. guusha kama dambaysta waa soo dhowdahay. shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka tayo xun yahay. annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiirannahay. guulo badanna waan haysanaa oo aanu haysanin cadowga. waxaan leeyahay geesiyaashaasow, guushii soo haabashay joogtaa, meeshii laga soo haaba lahaayay joogtaa. inta noo dhimana waa in yar. aan sii dhiiranno, annaan dhammaystirno, anoo 100% ku kalsoon inaad dhammaystiraysaan oo aad ku adkaysanaysaan haddii alla yiraa. haddaan taa intaa uga baxo, waan u soo noqdo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay ku nool yihiin. waxaan leeyahay walaalayaal, dalku dagaaluu ku jiraa. dagaal cadow ah oo cadow xun ah ayuu ku jiraa, oo aan lahayn meel looga hara lahayn. maanta xaaladeennu waa hal sile. halkaas cadow oo dalka, dowladnimada, diinta, dadka, intaba afartaba cadow u ah, oon waxba u reebeyn. waayo waxaan dagaal kula jirnaa. dowlad aan naqaano frontier oo xuduud loon ku duulno ama nagu soo duusho iska difaacna ma aha. deegaanadeennii, guryaheennii, beeraheennii, daaqsinkeennii, magaalooyinkeennii, suuqyadeennii, waayo waxay nagula dhex jiraan. inaan u midownon mid noqonno oo aan saas isaga saarro waa sida keliya ee noo furan. fursad ma qabno aan maanta aan aan ku shashakino oo aan taradud iyo aan ku galno. shacabka Soomaaliyeed ha garab istaageen meel kastoo ay joogaan ciidamada qalabka sida. ha garab istaageen meel kastoo ay joogaan difaaca dadweynaha, difaaca shacabka, difaaca deegaanka, wiilasha u istaagay ee jooga. sidaas waaye sida waajibka muqadaska dhammaanteen shacabka Soomaaliyeed nagu ah maanta. xoolihiinna, caqligiinna, codkiinna, xooggiinna dhammaan maanta waxay mudan tahay inaan u jeedino goobaha oo dagaalku ka socdo, inaan u jeedino garab istaagga geesiga qorga qaatay ee cadowga inuu soo dilo rabo. guushii aan joognaa. maalmihii guusha waa soo dhow yihiin. maalmihii wacnaa way soo socdaan. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.